magacan boqolsoon naftiisaan weydiiyey boqolsoon yaa kuu bixiyey seesa kuugu baxay wuxuu yidhi markaan xerta ahaa aan wax baranayay qofkeedii ma dad uma joogin meesha marka nin aada u dhowrsi badanna waa oo tacafuf badan aada u dhowrsan intaan ka aqaanay wuxuu ii sheegay sheekh maxamed axmed rooble boqolsoon kitaabka inuu ka akhristay nin sheekh ahaa oo la foole deganaa la foole isaguna muqdisho deganaa marka muqdisho iyo la foole intii isu jiraan waa safar un 9 saac oo hamiinnimaana ka akhristay xawar buu intuu ka soo guureeyo oo sheekha halkaa ugu tago 9 saac oo hamiinnimo oo kitaabka ka akhriso ka dhameeyey qisaska soo maray waxaa ka mid ahaa isagoo darsin akhrinaya oo aad loo dhooban yahay darsigu masaajidku buuxo yaa niman jawaasiis oo loo soo diray baa damceen inay qabtaan ardadii baa kacday marka ardadii baa kacday nin baa bastoolad la baxay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri markuu muslimiinta sheegay dadka guulaysanaya oo ka waramay al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi war muslim hogaansane waa qofka carabkiisa iyo gacantiisa laga nabad ka waranaya bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalaha sharafta badan oo soo dhawaada meel kasta oo adduunka joogtaan allah inii barakeeyo waa barnaamijyadeennii quruxda badnaa oo aan jeclaanay inaan culimmada soomaaliyeed hadba kii inoo suuro gasha aan taariikhdooda ku baranaynay sidaan ognahay culimmadu waa warasatul ambiyaa saas daraaddeed taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo sulugooda in la barto waa wax muhiim ah maanta waxaa sharaf iyo farxad inoo ah inaan baranayno mid ka mid a culimmadeennii soomaaliyeed ee waayihii hore soo maray soomaaliya balse aada ayaantan dambe aan culimmada soomaaliyeed ka mid ahayn ee adduunka ka tegey waxaa la yidhaahdaa sheekh maxamed axmed boqolsoon ummad badan bulsho badan oo kenya joogta bulsho badan oo soomaaliya joogta iyo bulsho badan oo adduunka daafihiisa joogta aada bay u garanayaan taariikhdiisa waa la yaqaanaa waa laga dharagsan yahay inkastoona muuqaalo badan laga haynin laakiin codkiisa in badan bulshada soomaaliyeed ay ku raaxaysatay sababtaan usoo qaadanayno culimadana waxay tahay ka nool in loo duceeyo in ilaahay cimri dheer iyo caafimaad uu siiyo kii dhintayna in la xasuusto maadaama aan codkiisii iyo muuqaalkiisii uusan oolin in loo duceeyo in ilaahay jannatulfirdowsatulaclaa uu geeyo ayaan usoo bandhigaynaa maanta waxaa sharaf iyo farxad inoo ah marka inuu muuqaalkan iyo nala qeybgelayo inuu sharxi doono inooga sheekay doono taariikhda uu la wadaagay ama waayajoogiisii hore intay saaxiibada ahaayeen intay ardada ahaayeen intay walaalaha ahaayeen ay ku wada jireen saxwada diinta islaamka ay soo bandhigayeen waxaa sharaf inoo ah maanta marka in uu nala joogo sheekhana alwaalid sheekh muuse macalin daahir uways oo in badan bulshada soomaaliyeed ee wada taqaano sheekhana soo dhowo marka hore waa dhowahay allah yubarik fiik allah ku barakeeyo waa kaaga mahad celinaynaa sheekhana maxaan ka garanaynaa sheekh maxamed axmed rooble boqolsoon taariikhdiisa iyo intaad ka taqaanid inooga dhac allah ku barakeeyo soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي runtii waa su-aal aada iyo aada u weyn sheekh maxamed axmed rooble oo macruuf ku ahaa boqolsoon taariikhdiisu aada iyo aad ay u ballaaran tahay waxaan malayn karaa oon isleeyahay haddii la yidhaahdo wax laga qoro mujalladaad aada u waaweyn in laga qori kari lahaa sheikha isku aqraan baan ahayn aqraan waxaa la yidhaahdaa dadka da-da isaga midka ah ee isaga dhow iyo xagga muxuu ahaa talaqiga cilmiga iyo culummada runtii sheikhu waxaa la dhihin karaa culummada qaarkood markii la tarjamayo tarjama laga sheekeynayo
waxaa la yihahdaa faaqa alaqraan, waa qof dhaafay da-diisi. marka dadka sidaa lagu sifeeya buu ka mid ahaa. sheikhu taariikhda hadda dhalashadiisa ma hayo, laakiin mandiqada uu kusoo barbaaray waxay ahayd goboladan hadda loo bixiyey galmudug, magaalo madaxa weya dhuusamareeb agagaarkeeda iyo zoonkaas buu sheikha dhalashadiisu ahay. dad ahludiina ayuu kasoo jeeday. awowgiis hooyadii dhalay waxaa la dhihi jiray sheekh maxamed axmed liibaan, nin macruuf ahoo sheikh ahoo ahlu diina, haddana nin aada u caaqil ah, caqli badnaa, kaaba qabiil ahaa na waa ahaa. sheikha naftiisu inta uunan soo xeraysan, oonan cilmiga soo doonan, waa sheekh boqorsoon baan ujeedaa, qur-aanku kusoo dhameeyey baadiya, markaabuu damcay inuu soo xeraysto. waa riwaayo toos oo sheikha aniga aan ka wariyo ka maqlay. aabahayba wuxuu igu shardiyuu yihi maadaama aan qur-aanka i bartay, in iga yaraa inaan qur-aanka baro, kan iga yar markaan qur-aanka baro inuu ii ogolaanayo inuu soo xeraysto. sidii baan yeelay buu yihi, ninkii iga yaraa baan qur-aankii baro yii, ila shardigaasa waalidkii ku xidhay, wuu ii ogolaaday inaan xeraysto. sheikhu marka xamar buu yimid, waxaan isku baranay marka xamar, duruustii aan wada qaadan jirnay. nin sheikh ahaa oo haddana dhintay, macruufna ku ahaa sheekh ibraahim suuley, oo macruuf ku ahaa kitaabka riyaad saalixiinka. kutubta sunnada iyo axaadiista soomaaliya mutaakhir bay ku ahayd. fiqiga u hormaray, fiqiga shaaficiga, fiqiga aada loo danayn jiray. tafsiirkana inta akhrisahi way yarayd. wuxuu aada u soo caan baxay oo aada u soo caan bixiyey sheekh maxamed macalin xasan raxmat ullaahi calayhi. isagana culamada tafsiirka ku caan baxday buu ka mid ahaa, sida sheekh cumar faaruuq oo kale. marka laakiin cilmulxadiidku waa yaraa, wax akriyahay aada bay u yaraayeen. sheekh ibraahim baa marka ayaa ku caan baxay, weliba kitaabka la yihaahdo riyaad saalixiin oo sheekh abu zakariya yaxya bnu sharaf annawowi raximah llahu tacaala uu alifay. sheekh nawowi sheekh isaguna aada u cilmi badan, aadana u dadaal badan, oo xadiidka iyo fiqigaba mutakhasis ku ahaa, kutub badan leh ayaa alifay, waana kutub barakaysan. sheikuna waa barakaysnaa. culummadu way badan yihiin, laakiin culimo waxaa jira ilaahay ummadda ku anfaco. ma ikhlaaska iyo taqwada unbaa saameyn ku leh. imaamu nawowi marka kitaabkaas waa kitaab aada u barako badan, ummaddana ilaahay aada ugu anfacay. qof kastoo muslimihiina aan leeyahay kitaabka akhriso, waa lagaba maarmaan. marka sheekh ibraahim oo kitaabka akhriya masaajid la yihahdo marwaas ku akhriya un baan isku baranay, isagaan isku baranay. galabtii markaanu sheikhu maqribkii iyo bayna almaqrib walcishaa buu akhriyi jiray, ayaan soo hormari jirnay oo casirka iyo maqribka inta udhaxaysa. markii igu horreysoon arko nin sheikha ayuu wuxuu ku dul akhrinayay kitaab fiqiya oo nadmi ah oo la yihahdo zubad, keligii buu ku dul akhrinayay. wiil dhalinyaraa oo naxiif ah oo aada u caato badan unbuu ahaa markii igu horreysoon arko. qof waxaa jira markaad aragtidiisaba aragtidba ku saameeya, markiiba waa aada baan ugu saamoobay. halkaas baan isku baranay. kabacdina haddee kutub kalena xer baan ku wada noqonay oo ku wada tixnayn.
oo kitaabkan naxwaha oo la yiraahdo alfiyat ibn malik baa ninka wada akhrisanay. Boqorsoon markaa nin sidaas ah oo dadaal badan oo anigu mararka qaarkood aan dhihi jiray nawawigii soomaalida wey. hada imaam nawawi cilmigiisa iyo ilaahay siduu cilmigiisa dadka ugu anfacay baa waxaan dhihi jiray dadku ma yaqaanaane waa nawawigii soomaaliya ayaan dhihi jiray. haddana wali sidii baan runtii ictiqaadsanahay. min marka aad u dadaal badan oo aan dhihi karo faaqa alaqraan dadkii ku da'da ahaa uu dhaafay xidigaha sida loo fiiriyo ayuu raggii ku da'da ahaa runtii u fiirinayay. sheekooyinkan ka hayo kitaab la yiraahdo muwatta imaamu malik oo xataa markii soomaalidu cilmiga xadiisku soo gaadhay aan is oran karo wax akhriyay way yar yihiin oo aan ka garanayo wadaad hadda doctor oo nin sheekh ah caalim ah culamada hadda maanta joogta ilaahay cumrigooda ha noo ilaaliyo ha noo xafido buu ka mid yahay oo la yiraahdo doctor sheekh axmed xaaji axmed imaamku magac dheer ayaa akhriyay oo waliba luqa alcarabiya ku akhriyay inuu duuban yahayna waa filaya muwatta imaamu malik. wuxuu ii sheegay sheekh maxamed axmed roble boqolsoon kitaabka inuu ka akhristay nin sheekh ahaa oo la foole deganaa la foole isaguna muqdisho deganaa. marka muqdisho iyo la foole intii isu jira waa safar 9 saac oo hamiinnimaana ka akhristay. xawarbu intuu ka soo guureeyo oo sheekha halkaa ugu tago 9 saac oo hamiinnimo buu kitaabka ka akhriso ka dhameeyey. sheekha iima uu magacaabin laakiin dhanigayga waxaan u malaynayaa inuu shariif cabdinuur ahaa. sababtay tahay la foolo dadkii deganaa culimmada deganeed waa la yaqaanay. qof aan isleeyahay kitaabkaasuu akhriyi karay kolley way jireen laakiin shariif cabdinuur umaan ka baranay. bisuu'i lxadi waqtigaas shariif cabdinuur xataa lama aqoon kabacdi baa la bartay. markaa inuu shariif cabdinuur ahay baan filayaa isagu ima magacaabin laakiin dhanigayga markaan shariif cabdinuur bartay kabacdi un baan anigu oon isku xirano marka ninkii sheekhu sheegayey ee muwatta imaami maali uu 9 saac oo hamiinnimo uga akhristay waan shariif cabdinuur markaan bartay kabacdi. marka ninka saasa buu ah. magacan boqolsoon naftiisaan weydiiyey boqolsoon yaa kuu bixiyey seesa kuugu baxay. wuxuu yidhi markaan xerta ahaa aan wax baranayay qofkeedii ma dad uma joogin meesha. marka nin aada u dhowrsi badanna waa oo tacafuf badan aada u dhowrsan intaan ka aqaanay. maadaama marka uu halkaa iyo baadiye ka soo xeraystay oo magaaladii uu yimid xerna uu yahay oo nin cilmi taxsiilul cilmi ku jira uu yahay nafaqaad iyo cid nafaqaysa midna ma jirin. soomaalida iyo culummada waxaa shaac ku ahaan jiray waliba culummada maaragtay naxwaha akhriya waxay dhihi jireen xarfuljarka waxaa la yidhahdaa laabudda min tacalluq meel uu ku tacalluqoo ka horreeya weynay jiraan. marka waxay ku mahmaahi jireen xerow iyo xarfujarba laabudda min tacalluq ay dhihi jireen. nin xerow ah iyo xarfujarba cid ay ku tacalluqaan weynay jiraan. marka sheekhu wuxuu ahaa xerow aan tacalluq lahayn. markaasaa waxaa dhici jirtuu yidhi asaabiic dhan inaana waxba cunin maadaama marka aanu hadda meel wax ii saarnayn baan iska soomi jiray yiri markaasi waxay yiraahdeen buu yiri waa kani waa boqolsoon. markii dambe waxay yiraahdeen boqolsoonka boqolkiina dhaafi bay yiraahdeen magaca halkaas iiga baxay. ficlan arrintii sidaas ayada marxalada uu soo maray caafimaadkiisa iyo noloshiisa way saameysay. oo waxaan xusuustaa isagoo koob shaah oo rijiya oo keliya oo quud u yahay oo cuntada kale xataa haddii loo kan uu ku jiranayo xanuunsanay. waxaan xusuustaa yani la qofku daaqa uu leeyahay daaqadii baa yani ma waqtigiisa leyla nahaar duruustiisu waa ama asagaa wax akhrisanaya ama waxbuu akhriyaya. dadka wuxuu ahaa
wixii uu soo barto soo akhriso gudbiya ayuu ahaa. markaas dee qofkii daaqadii baa ka dhammaanaysa, wuu dhacayaa. markaasaa mararka qaarkood aanu wadnaha ka taabanayna oo leenahay war naftiinba ku jirtaa mise waa ka baxday. haddana nis saac kabacdi isagoo on muxaadaro bixinaya unbaad codkiisa waxaad ka soo raacaysaa intaasoo maaragtay muxuu ahaa 1 kilomitr meelan ka yaray. yani shaksi on mararka qaarkood aad is leedahay on cajaa'iba min cajaa'ib dunya ayuu runtii ahaa. waxyaalahu aada iyo aad qofba waxbuu ku caanbaxaa. qof tafsiir buu ku caanbaxaa, qof luqada iyo kutubta maaragtay naxwaha iyo waxaasuu ku caanbaxaa, qof fiqiga buu ku caanbaxaa, qof xadiidka buu ku caanbaxaa. sheekha isagu 2 arrimood ayuu xooga saari jiray: waxyaalaha muxaadaraadka iyo tawciyaadka iyo kutubta axaadiista inuu akriyo. 2daas buu caan ku ahaa. culummada qofkii muxaadaro maanta loogu yeero waxaa laga yaabaa inuu waqti uu u diyaar garoobo. isagu wuxuu ahaa dadka aan waxba diyaarin, waa imanayaa, waa hadlayaa. xaafidna waa ahayo ilaahay wuxuu ku arsuqay xifdi iyo dakaa. aayadda u baahdo iyo xadiidka u baahdo waa soo qabsana. haddana ilaahay subxaanahu watacaala dadku isku mid ma ahe. qof waxaa jira ilaahay qubuul dadka qalbigooda u geliy. dadka noocaas oo kale sheikh u ah. waxaan xusuustaa waayahaas aanu ka hadlayo dowladdii markaa meesha joogtoo deganayd waddanka haysatay soomaaliya ka hadlaya. dowladdu waxay ahayd mabda'eeda iyo waxay mabda'a ka dhigatay uu yahay falsafa ilxaadiya oo ilaah diidda ah iyo diin diidda ah oo la yidhahdo shuuciyad. waa nimankan hadda oon ruushka iyo halkaa ruushka un bay kasoo minguuriyeen. maxaa yeelay niman askarahay ahaayeen ruushka iyo meelaha wax ku soo bartay, fakradda iyo falsafadaa soo xambaaray. waktigaasna dee dowladaha inqilaabyo badan oo caskariya ka dhici jiray. marka inqilaabyadii ka dhacay bay ka mid ahayn inqilaab bay waddanka ku qabsadeen. fakraddii marka ay halkaa kala yimaadeen meeshay wax ka soo bareen ay kasoo nuugeen bay ummaddii ku dabaqeen. waxaa la dhihi jiray hanti wadaag. nimanka shuuciyadaba waxay qabaan xagga mulkiya fardiya ma ogolayn. qof gooniyaha hanti iyo xoola leh oo mulkiyale may ogolaan jirin. mulkiyadu dadkay ka wada dhaxaysaa, waa mushaac, dadkao dhan bay ka wada dhaxaysaa. saas bay marka waxay yihahdeen hanti wadaag. yani kelimadii shuuciyadii bay waay af soomaaliya u bedeleen bay hanti wadaag ka dhigeen. waxayna ku salaysan tahay falsafa ilxaadiyo ilaah diidda ah oo iskuullada waxaa lagu dhigi jiray laa ilaaha walxayaatu maada. ilaah ma jiro, noloshuna waa waxaan maadadaa. iskuulladaa lagu dhigi jiray, waa macruuf dadkii waktigaa oo noolaha ama iskuullada soo gaadhay ama macalimiinta ah. waxaa kaleeto iyadana jira waxaa la yihahdaa calmaaniya oo ayaduna diin diidda oon diin ogolayn. diin oo dhan lama ogola. waxyaalahan culumtan iska tajriibiga ah, waxna waa culum diiniya, waxna waa culum tajriibiya oo tajriba lagu ogaaday. culumta tajriibiga unbay rumaysnaayeen. marka shuuciyadiiyo ilaah diidda ku salaysan iyo cilmaaniyadiiyo diin diidda ku salaysan labadoodiiba isu keeneenoo waxay dhihi jireen hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. marka mabda'a jira saabuu ahaa oon diin la ogolayn, oon ahlu diin la ogolayn. wadaadada xoogaa oon diinta ku dhegan oo dadka waxu sheegana wadaad xumaabaa la dhihi jiray. magacaasay lahaayeen wadaad xumayaal, wadaad cun unbaa la dhihi jiray oo aan mujtamaca ayaga agtooda aan ka lahayn wasni ka lahaynoo in inta lasoo qabto meel lagu rido. weliba waxay ugu dari jireen wadaad xume af miishaara. miishaarta waa ta alwaaxda lagu gooyo sooma. marka waxbuu sheegaya afka u miishaaraho dadka baa laga wadaa mabda-oodii wixii kasoo horjeedana noocaasa dhihi jira. waktigaasay ahayd marka
dhalinyaradoo dhan marka dee dhalinyaro iskuuladii iyo waxay culumta ku qaadanayaan ee ay fikraska ku salaysan tahay ilaa tacliimtu siyaasay leedahay siyaasa tacliimiyana ay tahay in loogu adeego mabda'aas jira oo dee un maaragtay muxuu ahaa nooca u badnaa dhalinyaro badan magacyo badan baa loo bixin jiray waagaas oo way lahaayeen waa cusuustaa waxaa la dhihi jiray caasi caasilwaalidiin baa laga wadaa maaragta waxaa la dhihi jiray geshi naclatullah magacyo noocaas oo kale taabaa dhalinyaradu lahayd dhalinyaro diin ka fogaatay oo dee tacliimta ay bartaan markaabaa dhalinyarada noocaas oo kale taahi ay maqlaan wadaadkaasoo un muxaadaro bixinaya waa la hoganaya waa la hoganaya markaabaa ilaahay dhalinyaro badan 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 oo rag iyo haweenba leh baa ilaahay ku hanuuniyay wadaadka caadadiisa waxaa ka mid ahaan jiray jahwariya sawt microphone uma baahnay shaarica laga maqlaya waa la istaagi markuu casharada iyo akrinayo iyo muxaadaraadka marka nin wuxuu ahaa oon ilaahay kelimadiisa dadka qabuul u geliyey dadka aada u baraarugay oo saxwada ku baraarugay waxaan isdhihi karaa waktigiisii 80% dadkii ku ta'afuray ka mid ahaayeen sheekhaas ilaahay ha u naxariisto ilahay waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala fii miisaani xasanaati ilaahay u yeelo waxyaalahu aada u danayn jiray marka sheekh waxaa ka mid ahaa muxaadaraadka ka sokow kutubta axaadiistu akhri jiray aada u akhri jiray dadku aada haddana u danayn jiray oo aada isleedahay mararka qaarkood aabbuu u ahaa oo aada uga warqabi jiray haweenka xaggooda bay ahaayeen aada uu haweenka uga warqabi jiray wixii dhiban buu ka warqabi jiray wixii mashaakil haystuu ka warqabi jiray adigu wuxuu ahaa sheikhnimo ka sokow kaannahu abun lahunna aabe inuu u yahay ayay ahayd sheikhu marka sidaa buu ahaa sifaadkiisa waxaa kaloo ka mid ahaa nin wuxuu ahaa jarii ku ah jarii masaa'ilka diinka ah laa yakhaafu fi llaahi lawmata laa'im mararka qaarkood jawaasiisaa imanaysa oo majliska joogta oo ninkaani bal inuu dowladda wax ka sheegayo in kale dhegaysta isle markaasay mararka qaarkood waxay ismoodi jireen inuu yaqaano yani meelahu ka hadlayo iyo sida uu taabanayo waxa ay ku dhaqmaan oo dhan buu kaga badiyaa iyaga nin marka wuxuu ahaa jarii ah oo aan maaragtay muxuu aha ka gamban mas'alada saxda ah waayahaas waxaa jiri jiray wadaadadu ururaa la ahaa badan oo soo baxbaxay oo qolo walba ay nidaam gooniya leedahay qolo walba marka ayaga wajhadooda unbaa cajab geliya qolada kale waxaa laga yaabaa inay dhaliila u hayaan maaragta marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa inay xadidayaan nidaamka ayaga u yaala maadaama ay takatulaad iyo ururo ay yihiin ururka nidaamka u yaala laga yaabaa inuu qofka qabiro isagu sidaa ma ahayn nin waxaasoo dhan ka xor ah buu ahaa oo diinkiisa iyo kelimadiisa iyo fiqigiisa iyo aragtidiisa xor u ah oon qolana ku ilaalin maaragta jari'na ku ah laa yakhaafu fi llaahi lawmata laa'im mararka qaarkood waxaa la isku dayay dhowr goor in la qabto gacanta lagu dhigo soomaaliya gaar ahaan waa loo adkeysan waaye ummaddii o dhanaa ka daba yaacay maaragta yacni guryihii nimanka madaxda ahay bay gashay qisaska soo maray waxaa ka mid ahaa isagoo darsin akrinaya oo aada loo dhooban yahay darsigu masaajidku buuxo yaa niman jawaasiis oo loo soo diray baa damcayn inay qabtaan ardadii baa kacday marka ardadii baa kacday nin baa bastoolad la baxay marka bastooladii baa gacanta looga dhufto gacanta looga dhigay marka buuq ba asagii baana halis galay sheekhi isla markiiba cashar kaluu lahaa buu aaday cashar kale lahu aado inuu soo akriyo meeshaadiga buuq baa ka dhacay arrintii xoogaa waa la dejiyey rag baa waxirada ninkan haddii la rabo ninkan maxaa laga rabaa stationka laga rabaa baa stationka ayaa laga rabaa
ninkaan anagaa keenayna hadduu dhib leeyahay stationka anagaa keenayna darsigii kaloo aaday markuu soo bixiyo isagu stationkii tegay uu yidhi yaa iraba ninkaasaan ahayn lamana yaqaano de waa nin markii codkiisa la maqlo ama magaciisa la maqlo nin dhirir badan oo weynan badan oo 100 maaragtay muxuu ahaa kiilo dhan baa loo malaynayaa markii la arkana waa wiil yar oo kulligeed oo dhangad ah marka dadku kuwa xataa loo soo diray ma aqoon karaan ninkaabaan adiga miyahaa bal fadhiisaa la yidhi stationka waxaa haysta nin minjir ah gaashaan la-ah 3 gabdhood oo dhalo macallin u yahay isna kama warqabo gabdhihii markii loo sheego le sheekheennii baa stationka lagu haystaa bay aabahood ku dhex dhacaan le sheekh ayagii baa la xiray qasim waxaa ku noqotay inuu yidhaahdo sheekhaa la sii daayay ninkaa marka waxaa weyan ardadiisii iyo dacwadiibaa waxay gashay nimankii madaxda ahaa guryahoodii heer la xakumi waayo awal waagii hore gabadhii xijaab qabta soo qabay xabsiga ku rid wadaadkii la arko inuu waxoogaa sarwaalku u gaaban yahay ama garku u baxay ama saacadda midigta ku xirto waa qoladiiyo soo qabta xabsi ku rida bay ahayde waaba faaftay yaa la xidhaa yaasa la iska daaya madaxda carruurtoodii miyaa la xidhaa saasaa dhacda adigu mar dhexe aan u malaynayo inay ahayd 80 iyo adigu 5 8 meelaha adigu waayo dhexe buu mar caafimaad u yimid Nairobi markaa Nairobi baa joogay anigu uu laabtay 86 baa waxaa dhacday wadaadadii oo dhan in xabsiya lagu raadiyo isagoo darsin akhrinaya barqadii ayaa la damcay in la qabto iyadana way suuro gali weysay dadaaba ku dhaawacmay xabadihi ay ridayeen meeshii dhammeed waxay noqotay meel on fawda ah maxaa yeelay dee kumanaan qofa u fadhisa ayagana qabaawadooda inay meelo kale ka raadsadaan ma i dhicine waxay damceen inay darsigii ku dhex qabtaan hadday meelaha kale ka raadsanyana maba yaqaanaanba hadda laakiin waxay ku aqoonayaan darsigii uu fadhiyaa codkiisa waa la yaqaan laakiin shakligiisa lama yaqaan adigu sheekhi kasoo oo laga soo gudbiyey Nairobi buu yimi waxay ahayd waan umaleynaya 86 ayay ahayd sheekhu isagoo jooga 86 Kenya oo Kenya waliba dacwadu ay daciif tahay oo cadadul asaabic dadka ay tahay buu yimid Soomaalida joogto dhan buu sheekhu ayagiina kiciyay adigu Nairobi uu badnaa Kenya uu badnaa muddo joogay ilaa geeridiisii isagoo aan raba inuu waalidkii soo booqdo oo gobolada dhexe jira unbaa qolooyin un kaloo iska moryaana oo waddada u gashay unbaa ilaahay gacantooda ku sababay ilaahay ha u naxariisto marka warkiyo kooban waxaan oran karaa sheekh Boqorsoon da'diisii iyo dadkii la waqti ahaa nin dhaafay buu ahaa faaqal aqraan nin wuxuu ahaa sidaan u sheegay nawawigii Soomaaliya waa sidaan aniga aan u arko kuna aqaanay nin wuxuu ahaa juhuud badan dadaal badan madaala ah waqtigiisoo dhan aad moodid inuu u waqfay inuu dacwo iyo kelima xaq gudbiyo ولا سيما سنة النبي إنه مشريع وماركتي ووقفي حدنا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك قبول وقليي دعوديسة إلهي قبول كرديغي ومقبولة إلهي كرديغي وقت جيسي وان حسوستا لوقف بعجلده هذا أدلو دننجري وقتاس ما جرين هذا تكنولوجي دان هذا ما جرين كاسيت با laga duubi jiray cid hadda inta nidaamisa aruurisana ma jirin dadka un baa kala qaada jiro kala daftafi jiray iyo nin la yiraahdo abshir nuur faarax abshir bacadle mashhuur ku ahaa oo isaguna nin suugaan yahanaha hal abuur leh inta badanna ka gabya diinka